maalin maalmaha ka mid nebi maxamed ku salli sala allahu calayhi wasalam wuu ooyey. asxaabtiisii markay arkeen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo ooynaayane ayagana way ooyeen. haddaba maxaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ka oohiyey? alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. walaal joogtaan, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. maanta waxaan rabaa inaan idiinla wadaago xadiid aad u gaaban, aad u qiimo badan, qalbigana taabanayo. xadiidkana waxaa wariyay abu hurayra radia allahu canhu, waxaana soo saaray imaam muslim raximahu allahu tacaala. can abi hurayrata radia allahu canhu qaala zaara annabiyu sala allahu calayhi wasalam qabra ummihi fabakaa wa abkaa man xawlah. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo siyaartay hooyadiisa qabrigeeda. markuu meesha tegayna wuu ooyey, asxaabtii la joogtayna way ooyeen. qaala ista'dantu rabbii fi an astakfira laha falam yu'dan lii wasta'dantuhu an azuura qabraha faudina lii. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay, ilaahay waxaan weydiistay hooyaday inaan dembi dhaaf u weydiiyo, istikfaar u sameeyo, waa lii diidoo liima ogolaanin. kadib ilaahay waxaan weydiistay qabrigeeda inaan soo ziyaaran karo, oo waa lii ogolaado soo ziyaaraa lii dhahay. fazuuru lqubuur fainahaa tudakiru lmowt. ama riwaayo kalo, fazuuru lqubuur fainahaa tudakiru alaakhira. rasuul sal alay slam wuxuu yii, war qubuurta soo ziyaarta, taga. qabriga tegitaankaa tegaysid wuxuu ku xasuusinaa dhimashada, geeriduu ku xasuusinaa, ama wuxuu ku xasuusinaa aakharo oo qalbigaaga wuu jilcaa, wuu qoyaa, ilaahu u soo noqona. haddaba walaalayaal, xadiidkan waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxaa waaye laba arrin. tan koowaad, qofka iyo adiga xiriirka idinka dhexeeya waxaa waaye xiriirka islaamka. adduunyada intii la joogo dadka way tacaamuli karaan, way wada xiriiri karaan, ama qaraabaha noqdaan ama shaqaha ka dhexayso. laakiin qofka markuu dhinto hadduusan muslim ahayn, ilaahay dembi dhaaf looma weydiin karo, mana loo ducooyn karo. tan labaad, qabriga inaan tagno inay sunno taho wanaagsan tahay. qalbigaaga markuu adkaada qabriga tag. markaad tagtid soo fiiri dadka meesha ku jiro. markaa fiirisid waxaa isweydiisaa, qofka meesha ku jiro shalay bannaankuu joogay, wuu soomi karay, salaaduu tukan karay, wuu sadaqaysan karay, laakiin maanta fursadaas iyo jaaniskaas ma haysto. aniga waa haystaye maxaan samayn karaa? waxaa samayn kartaa marka wax walboo ninkaas samayn karin, oo inaad soontad, sadaqaysatid, tukatid, istikfaar la timaadid, ducoysatid, intaas dhana haysatahay. ee ka faa'iidayso waqtigaaga intaa nooshihid, qabrigana tag. ugu dambayntii, allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khaatimada noo hagaajiyo, dembigiinana dhaafo, dembiga waalidkiinana dhaafo, ahlu jannana naga dhigo. aamiin dhaha. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.